الرحيم maanta oo ay taariikhdu tahay 18 Juun 2019 waxaa shir ballaaran ku yeeshay xarunta dhexe ee xisbiga midnimo qaran qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka kuwaas oo ka arrinsanayay xaaladda uu dalku ku jiro dood iyo falanqayn dheer kadib axsaabtu ka soo qayb gashay shirka waxay isla garteen qodobadan soo socda number 1 axsaabtu waxay marka ugu horeysa soo dhaweeyeen shirkii qurba joogta ee ka dhacay dalka Turkiga sidoo kale axsaabtu waxay ku baaqayaan in shirarka noocaas oo kala ah ay ka dhacaan dalka gudihiisa si looga faa'iideeyo dhaqaalaha ku baxaya dadka iyo dalka Soomaaliyeed number 2 xisbiyadu waxay aad u dhaleeceeyeen kana tacsiinayaan dilalkii ka dhacay Gaalkacyo Dhuusamareeb iyo Beledweyne kuwaas oo ka soo horjeeda diinteena sharafta badan ee islaamka waxaan ku baaqaynaa in sharciga la horkeeno cidii ka dambeysay falalkaas guracan number 3 xisbiyadu waxa kale oo ay ugu baaqayaan dawladda iyo maamul goboleedyada waxa inay wax ka qabtaan dilalka qorsheysan ee ka dhacaya meelo kala duwan oo dalka ka mid ah sida dilalka loo geysto dadka birmigeydada ah number 4 xisbiyadu waxay xukuumadda ugu baaqayaan in ay dhigto gogolo ay ku wada hadlaan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka si xal looga gaaro arrimaha masiiriga ee dalka number 5 xisbiyadu waxay soo jeedinayaan in xukuumaddu ay ka qayb geliso qaybaha kala duwan ee bulshada ay ka talinta iyo wada xaajoodka dalka number 5 xisbiyadu waxay soo jeedinayaan number 6 axsaabtu waxay ugu baaqayaan xukuumadda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka in ay muujiso foojignaan xooggan si looga hortago cudurka halista ah ee Ebola xuduudaha dalkana aad loo adkeeyo si aan uga digtoonaano cudurkaas ku faafaya deegaanada deriskeena ah gobolada deriskeena ah inuuna noo soo gudbin ilaahayna waxaan ka baryaynaa in uu naga badbaadiyo cudurkaas halista ah number 7 xisbiyadu waxay golaha shacbiga ugu baaqayaan in ay ka gutaan waajibaadkooda qaran sharciga doorashooyinka ee hor yaalla ayna dedejiyaan meelmarinta sharcigaas number 8 hay-adaha amniga ee dalka waxaan ugu baaqaynaa in isbeddel lagu sameeyo sugidda amniga dalka gaar ahaan caasimadda dadweynahana loo furo wadooyinka muhiimka u ah isu socodkooda gabagabadii qodobka ugu dambeeya oo qodobka 9aad waxaan soo jeedinaynaa ugu baaqaynaa xukuumadda in la qaado cunaqabataynta iyo xayiraadda ka jirta meelaha qaar dalka sida magaalada Marka oo ay ka jirto duruuf runtii nololeed oo aad u adag wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh